xaflad lagu sabootinayay ladkii ugu horeeyay ee ka qalin jabiya jaamacadda Elo American University ayaa maanta ka qabsoontay hotelka Royce ee magaalada Boorama. xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiro, xildhibaano, aqoon-yahano, salaadiinta maamulka gobolka iyo waalidiinta ardayda qalin jabinaysay. kulliyadaha laga qalin jabinaya ayaa waxa ay dhanayeen tiradoodu 3 kulliyadood oo kala ahaa kulliyadda maamulka iyo maareynta, kulliyadda computer science iyo kulliyadda engineering oo ah kulliyadda kaliya ee laga qalin jabiyo wixii ka dambeeyay burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya. ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Elo Maxamuud Xuseen Ciga oo lagu xoojinayo ardaydu inta ayna kursooyinkii rasmiga ah u gelin si ay loo improve ama loo xoojiyo aqoontooda ku saabsan. marka waxa fikrad ah dhalatay in sources kale ka yimaado iskuuladii ama secondaryada noqoto ama primary schools ka noqoto in lagu xoojiyo oo la kordhiyo ama la improve gareeyo basic science iyo maths iyo English koobiba. taa ayaa keentay maadaama jaamacaddan waxyaabaha lagu yaqaan ay aad ugu horeyso xagga luqadda oo programs ESL programs oo inta level kala duwan leh arday badan oo gobolka kamid ah iyo gobolada ka baxsanba ay hore uga soo qalin jabiyeen imikana ay dhigtaan in la abuuro department of education ama faculty of education taasoo markaa training siin doonta macallimiintan u soo dhigaysa ardayda primary schools iyo secondary schools si halkaa looga soo dhiso oo culaysku uga yaraado ardaydana waqtiga uga lumin. taasaa keentay runtii baahida in kulliyadda education aan ku darno September tan furdo insha Allah. maanta waxaa inoo qalin jabinaysa maqasheen 149 arday oo isku jira degree programska iyo diploma iyo certificate. wasiirka awooda Maxamed Xaashi oo jacayl halka iyaga aan uga mahadnaqo waalidiintii ku soo tabcay wadkaas iyo macallimiintii iyo mas'uuliyiintii jaamacadda Elo. runtii shaqo weyn ayaa la qabtay waxaana ururtii ay watii xikmadii carabiga ahayd masalaca xasan qofku wuxuu beero ayuu ku goosaa. intaa marka laga yimaado waxbarashadu waa aalad ummadu isku dhaafaan, ummad waliba iyo qaran waliba si ay ta'yiirtiisa ay u barato qanjimiinta ama heerkaan soo gaaray nololeed. waxaan u mahad celinayaa saaxiibaday igu caawiyay. waxaan kaloo soo kala salaamayaa ama aan u mahad celinayaa macallimiintaydii igu soo tabcay dhowrkaa sano soo dhiganay engineerinka. waxaan kaloo salaamayaa cid walba oo iga geysatay waxa weeye dhiirigelin. maanta magacayga ayaa Abdulrashiid Maxamuud Muuse waxaan ka qalin jabiyay kulliyadda maamulka waxaan ka qalin jabiyay dareenkayga maanta aad iyo aad baan u farxay sababtoo ah waa marka anigu isku joogo waddankayga oo shaqeeya ilaahay ruuxaantii iyo garantiin ilaahay wiigalatay in mar labaad aan ku jiro jaamacadda. ugu dambeyntii waxaa halkaasi lagu guddoonsiiyey ardaydii qalin jabinaysay shahaadooyinkii. Xadar Maxamed Xasan, shabakadda wararka Xidig News, magaalada Boorama.